ninkan wajigiisa markaa si fiican u fiiriso waxaa arkaysaa calaamad istilaaha wajigiisa ku taala wuu is arka wuu yaaba gabadha kasoo horjeeda way leedahay dadka meesha saaran oo dhan ayuu fiirinaya kadibna wuxuu arkaya wajigooda inuu istilaab ku qoran yahay wuu yaabaya wuu qaylinaya cid jawaabaysa ma leh asagoo oo yaaban waxa uu imaanayaa tareenka dhulka hoostiisa mara stationkii looga degi lahaa kadib asagoo yaaban kaligiis ayaa degaya tareenka marka uu ka dego waxa uu maagaya ninka waardiyaha u sheeg laakiin waxa ka yaabana in isla ninka waardiyaha lafdigiisa madaxa uu ku leeyahay calaamada istilaabta dadka sidoo kale stationka jooga waxay leeyihiin calaamada istilaabta waa uu naxaya wuu shoogaa wuu soo cararaya kadib waxa uu arkaya dadka wadada maraya laftigooda in ay leeyihiin calaamada istilaabta taasoo aad uga yaabinayso waxaa sidoo kale ka dhacaya alaab ka mid ah uu watay ma uu dareemayo wuxuuna meesha kaga fakanaya sida ugu dhaqsiyaha badan xaafadda ayuu aadaya guriga markuu saas u galo waxa uu ku qaylinaya noo aruuriya alaabta laakiin markii xaaskiisa iyo ilmihiisa soo jeestaan wuxuu arkaya ayagana sidoo kale inay calaamada istilaabta wajiga ku leeyihiin TV-ga ayuu fiirinaya wariyaha laftigiisa ayuu wajiga waxa uu ku leeyahay calaamada istilaabta waxa ka yaabinayo isla ra'iisul wasaaraha wadanka Japan laftigiisa inuu calaamada istilaabta wajiga ku leeyahay aad ayuu u naxaya waxa meesha ka socda ayuu fahmaya waa yaabaya asagoo aad u qeylinaya maxaa idinku dhacay subaxii xigay ayuu soo kacaya wuxuuna fiirinayaa miyaarada wuu arkaya calaamad ku taal xaaskiisii ayuu wacaya wuxuu leeyahay kaalay wajigeyga wax ma uga jeedi kartaa iga fiir si fiican u fiiri waxay leedahay waxa wajiga uma jeedee way fiirinaysaa waxba kuuma jeelaan ee shaqada aad ka daahin isla markii uu tusaya wuu fahmi weynaysaa ee shaqada aad ay leedahay kadib uu soo baxaya tareenka dhulka hoostiisa mara ayuu soo raacaya daaqada ayuu isku fiirinaya wuxuuna arkaya calaamadii wajiga kaga taale soo yaaban waxa uu imaanaysa gabar la shaqeysa wuxuu leeyahay wajigayga fiiri calaamad ma ka muuqataa waxay leedahay waxba uma jeedo kadib musqusho ayuu imaanaya miraayada ayuu isku fiirinaya kadibna waxa uu arkaya in calaamadii kalarkeeda uu aad u soo weynaaday wuu yaabaya aad ayuu u naxaya wuu walwalaya subaxii habeenkii wuxuu imaanaya xaafadda asoo cashada miiska cashada la fadhiyo gabadhiisa ayaa weydiinaysa maxaa kugu dhacay kadib wuxuu leeyahay fiiri madaxeega ma jeedaa calaamad istilaab ah gabadhii way yaabaysaa way fiirinaysaa waxba aaba kaagama jeedo intaas kadib waxaa naagtiisa imaanayso way fiirinaysaa calaamadii sidoo kale ayada way arki weynaysaa aad ayuu u yaabaya arrintaas aad ayay u xanuujisay waxa uu ku qasban yahay subax xiga wuxuu u kala hay dhakhtarkii waxa uu gelinayaa bahalka iskaanka lagu baaro dadka maskaxdiisa waa la baaraya inuusan wax problem ah qabin ninka wuxuu leeyahay fiir wajigayga saaxiibo wax ma uga jeedaa ninka wuu yaabaa kadib wuxuu leeyahay saaxiibo bidaara kugu soo socoto iga tag wuu ka cararaya asagoo niyad jabsan waa uu soo baxaya jaranjarada ayuu soo raacaya kadib wuxuu arkaya nin asagoo camal ah oo wajiga istilaab kaga taalo way is arkayaan way isku soo ordayaan sida walaala camal is arkay xabadka ayay isgelinaya midba midka kale wuu qoslaya way iska can qaadaya meel casha imaanaya meel casha markii imaadaan ninka cashada guraya wuxuu weydiinaya nin calaamada X-ka dadka wajigooda ugu qoran maxaa waaye wuxuu leeyahay calaamadaas markii dadka soo baxdo way dhiman rabaan oo waxa ay ku jiraan xaaladda u dambeysay waxaana is arki kara dadka ayay kali ah isku xilliga ah oo micnaha ayagana dhiman rabo kuwaas ayaa is arki kara calaamada X-ka waa dhimasho ma rumaysanayaan cashadooda isku cunaya waa iska soo baxa maalinta xitaa asoo iska guri iska jooga TV iska daabanaya ayaa waxaa loo sheegayaa in nin hore loo yaqaanay uu dhintay kadib TV-ga waxaa kasoo muuqanaya ninka khudbad uu jeediye kahor intuusan dhiman kahor waxa uu arkaya calaamadii oo wajigiisa ku taala aad ayuu walwalaya saaxiibkiis la casheynayay ayuu wacaya lambarkiisa ayuu baaraya kadib waa uu raadinaya taleefankii markuu soo qaato waa wacaya taleefanka waxaa ka qabanaya xaaskiisa wuxuu weydiinayaa aaway hebelkii taleefankan iska lahaa xaaskiisa isla markii waxa ay ugu jawaabaysaa ninka aa raadinayso waa uu dhintay shalay ayuu dhintay aad ayuu u naxayaa naxdinta ayaa kusii siyaadayso asagoo gariiraya ayuu taleefanka iska dhigaya sababtoo ah saaxiibkiisa shalay la casheynayay ayaa dhintay wuxuuna tagayaa saaxiibadiisa si aaska uga qayb galo kadibna saaxiibkiisa u arkaya oo ku jira bahalka la saaro meydka laakiin calaamadii waa ay qarsoontay wuxuuna fahmayaa in ay taasi tahay micnaheeda in dhimashada ay tahay mid soo dhow kadib wuxuu ku fadhiisanayaa wiifo waa uu fakarayaa waxyaabihii noloshiisa uu soo qabtay asagoo ku fakaraya markaana xaqiiqsaday in uu dhiman doono waxa uu kusoo laabanayaa kadib gurigiisa ayuu imaanayaa wuxuuna soo qaadanayaa waraaqadaha inshuransiga oo qoyskiisa iyo asaga kadibna waxa uu fiirinayaa xaaskiisa iyo gabadhiisa oo qoslaya waraaqadihii iyo wixii ku qornaa waa uu saxiixaya kadibna waxa uu ku qorayaa xaaskiisa intaas kadib xaaskiisa ayaa soo dul istaagaysa asoo haya waraaqadii inshuransiga way u imaanaysaa way la kaftamaysaa laakiin taas kuma socoto intaas kadib markii cambaar ay sheekaystaan gabadhiisa ayaa waxay ugu diraysaa dhala koob qamri ah gabadhii intay usoo wada qamrigii waa ay u keenaysaa kadib qamrigii ayuu cabayaa asoo niyadda ku haya inuu dhimanayo qamriga markuu cabo waxa uu gelayaa jawi kaleeto qamriga ayuu ku raaxaysanaya laakiin isla markii wuxuu ogaanayaa in ay waqtigiisu dhammaaday dhowaanna uu dhiman doono taas ayaa niyadda uga taagan markasta subaxii xigay waxa uu imaanayaa meesha lagu cadaysto wajiga ayuu iska dhaqaaya gabadhiisa ayaa u imaanayso waxay leedahay maxaa kugu dhacay buraashkayga ayaa macnaha ku cadaysatay gabadhiisa waa uu macasalaamaynayaa si aysan fahmaynin sidii caadigeed shaqada ayuu soo aadayaa xaaskiisa ayuu la hadlayaa la dardaarmayaa wuxuu leeyahay waa inaad micnaha xaaska qoyska ka darxadirtaa
wuu gacan haatinaya gacan haatintii ugu dambeysay ay xagiisa ka tahay asagoo faraxsan yaqiinsadan inuu dhimanayo tareenka soo raacaya laakiin markan wuxuu ku qasban yahay inuu wax kasta oo wanaag uu sameeyo nin ayaa u imaanaya deen ayuu weydiisanaya waa uu siinaya ninkii waa farxaya wuu u mahad celinaya intaas kadib banaanka ayay leer usoo doonanaya asaga iyo xogayihiisa waxay ku leedahay waa isbedeshay dhaqankaaga maxaa kugu dhacay kadibna ayada xafiiska ayay iskaga laabanaysaa asagana waa uu soo baxayaa si uu u aado gurigiisa sababtoo xaaskiisa ayay dhalashadeedu ku aadan tahay waxa uu soo qaadayaa abaalmarin uu ugu talagalay ayada marka uu soo raaco tareenka waxa uu la yaabayaa in dadka meesha saaran oo dhan wejigooda ku sabiran tahay calaamad istilaabta waa uu naxaya wuu soo cararayaa xataa hadiyadii ugu talagalay xaaskiisa waa uu kasoo tegayaa kadibna tv-ga ayuu wuxuu ka arkayaa in wariyaha laftigiisa wejiga ay wax kaga taalo qoyskiisa ay ku taalo kadib wuxuu ogaanayaa arrintan in ay tahay fariskan uu yahay mid ku faafsan magaalada qof kastana uu dilaayo fariskan waa mid lagu sameeyay shaybaar waxaana ka dambeeya qolada lacag ku raadinayso waxayna ugu talagaleen cid kasta oo ku sugan dhulka dushiisa in ay fariskan qaado ayna u dhimato wuxuu xaqiiqsanayaa markaan in arrintan ay tahay faris oo si ku talagal ah dadka dhexdooda loogu faafinayo wuxuuna dareemayaa in uusan asna ka badbaadi doonin dhimashada maadaama farisku uu ku dhacay wuxuuna la dardaarmaya xaaskiisa iyo gabadhiisa asagoo u saxiixa waraaqaha inshuransiga asagana si uu iskaga dejiyo walwalka qamra ayuu ku dhufanaya